xalay waxa dhacay waqti dhaca shil dambiyeeda ay geysteen dad dambiyaala mudana aan ku daba joognay xalay ilaa waqtiga hadda taaganahay howlgallo iyo baaris dheer kadib waxaan noo cadaatay inay ahaayeen dad isku haystay beero oo dad deegaan ahaa oo beeraley isku haystay dadkaas dhagar qabayaasha oo waxay ka baxeen magaalada Bulburte xalay abaaro 3 saac waqti ahayd iyo 4 saac inta u dhaxaysan waxay ku dileen marxuumkii dhintay gabadhiisii ay guriga ku dileen Allah u naxariisto dadkii ka dhinteen sabr iyo iimaan Allah ka siiyo anaga ka amni ahaan ma seexan xalay ilaa waqtiga hadda taaganahay inta u dhaxaysan waxaan tala taagnay dadkii geystay falkaas haddana baaristoodu mal fiican noo maraysaa waxaan gacanta ku haynaa inaan horta awalan garanay ayagii aan helay raadkii meeshuu soo galay guriyuu soo galay waxa la way guriyay soo galeen falkii uu soo galay dadkii ku noolayn waan soo xirxirno hadda way xiran yihiin nimankii lahaa guriyahaasni oo hadda aan falayeen falka geysteen wali way naga maqan yihiin aad u mahadsan tahay dad shakhsiyaadkii looga shaki qabay in ay geysteen wali gacantayna way ka maqan yihiin si toosana telefoonkoodii iyo waanu helnay mar haddii ay gurigoodii soo galeen haweenkoodii soo qabanay waxaan leeyahay haweenkii niya xiran telefoonadiina way dansadeen ilaa haddana baad goob loogu jiro xalay wuxuu dilku ka dhacay meel aeroboortkii hore ee degmada Bulburte ee ku yilay dhanka galbeedka meel kana siran soono koonfur uga aadan dad reer baadiyo beeraley ay ahaayeen falku ka dhacay dadka falka geystay 3 ruux bay ahaayeen raadkoodii markay wax geysteen waxay soo noqdeen magaaladii Bulburte dib u soo galeen meeshaas baa raadkoodii laga soo qaaday si loo soo raadinayeen waxay soo galeen guriyahan hadda dadka soo xiraan oo maasan tahay baaristu waxay noo maraysaa rajadu aad bay u fiican tahay xalay meesha noo joogta hadda nooma joogto meel ka fudud noo joogta mar haddii ay gurigay wax galeen dambiilihii kale aan helnay waxaan noo dhiman kaliya dambiiliyo gacanta soo qaban